بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم maanta ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble waxa uu kulan gaar ah oo ku saabsanaa amniga guud ee dalka gaar ahaan xilligan muhiimka ah ee dalku uu isku diyaarinayo doorashada uu la yeeshay hay'adaha dawladda ee qaabilsan amniga wasaaradaha iyo talisyada iyo maamulka gobolka Banaadir ra'iisul wasaaruhu waxa uu mas'uuliyiinta ula kulmay oo kala duwan faray in la dardargeliyo howlaha la xiriira adkeynta amniga guud ee dalka iyo gaar ahaan goobaha ay doorashooyinku ka dhacayaan waxa ay saraakiisha amnigu halkaas ku soo bandhigeen qorshahooda ku aadan adkeynta guud ee dalka iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada oo markasta isku dayaysa in ay dadka Soomaaliyeed cabsi geliyaan in ay hor istaagaan horumarka waxaa ra'iisul wasaaruhu uu ammaanay runtii doorka weyn ee ciidamada amniga qaybahooda kala duwan ay ugu jiraan in dalka amnigiisa la adkeeyo sidoo kale kulanka waxaa looga hadlay sidii dadweynaha Soomaaliyeed ay door weyn uga qaadan lahaayeen gacansiinta ciidamada amniga iyo sida ay uga caawin lahaayeen wax kasta oo ka hortagaya falalka argagixisada oo inta ay dawladdu mashquulka ku tahay in ay nabadgelyada sugto iyaguna mashquul ku ah in ay nabadgeliyo darro abuuraan inta ciidamada amnigu ay ku mashquulsan yihiin inay qof Soomaaliyeed badbaadiyaan iyaguna mashquul ku ah inay qof Soomaaliyeed dilaan marka dawladda Soomaaliyeed waxa ay dadweynaha Soomaaliyeed uga mahad celinaysaa dadaalka weyn iyo doorka weyn ee runtii ay ku leeyihiin sugidda amniga iyo aaminaadda ballaaran iyo la shaqaynta ballaaran ee bilba bisha ka dambaysa soo kordhaysa muxuu ahaa ay siiyeen ciidamada qaranka oo la'aanta wada shaqaynta ay shacabka la leeyihiin aanay suurtageli lahayn in amniga ay sida uu yahay uu ahaado waxaan jeclahay markaa halkan inaan baaq uga jeediyo guud ahaan dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool caasimadda Muqdisho in ay feejignaantooda iyo muxuu ahaa dareenkooda ku aadan dhagarta cadawga ay kor u qaadaan waa ogtihiin maalmihii dambe falalka argagixisadu ay isku dayaysay in ay maaragtay ku cabsi geliyaan dadka marka dadka Soomaaliyeed ee ganacsatada ah iyo kuwa xaafadaha degan iyo qof kasta oo Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in uu dareenkiisa kor u qaado inuu ogaado dadka agihiisa socda iyo dadka dariskiisa ah iyo dadka u imaanaya iyo waxa looga shaqeynayo gurigiisa ama dukaankiisa ama wadada hormarta dhammaantood waxaan inagoo u mahad celinayna leenahay dadka Soomaaliyeed aad iyo aad baad u mahadsantihiin fadlan gacan siiya ciidamada amniga ee u taagan inay nabadgelyadiina ka shaqeeyaan in ay idinka badbaadiyaan cadowga raba in si kasta oo ay noo waxyeeli karaan dhammaanteen ay noo waxyeelaan waa mahadsantihiin